بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu qaadanaynaa cashar ka duwan casharadaynu ku qaadan jirnay website-ka Bash Academy iyo weliba kanaalkan ku leenahay YouTube-ka ee aanu casharada mararka qaar soo gelino. casharkeenu caawa qaadanayno waxaa loogu talagalay dadka C1 ilaa C5 ama dadka luqadda si fiican u garanaya. dadka qaar baa dhahaa ab B5 ayaa lagu bartaa, laakiin maya, B5 laguma barto, ab C1 ilaa C5 ayaa lagu qaataa. laakiin dhibka jira wuxuu yahay casharkeenu caawa qaadanayno ama eriyadan sababta aan u soo qaateen og dad badan inay levelka ka hooseeyaan ayaa waxay tahay dadka loo yaqaano Muttersprachlerka ama dadka luqadda u dhashay. Erayadan waxay u isticmaalaan si furugta ah, si waalan ayay u isticmaalaan ama caadiyan bay si caadi ayay u isticmaalaan. innagana kuwan ayaa nolosheena ku xidhan tahay oo kuwan ayaynu la macaamilaynaa oo maalin kasta waxa loo yaqaan Alltagssprache dadkana waxna kaga xidhmayaan. marka dadkii way isku cadiban yihiin. erayadan aan hadda casharkan aan insha Allah dhowr cashar baan ka samaynayaa aan ka hadli rabana dadkan inta badan Auslanderka aan luqadda ku fiicnayn way ku adag tahay. dadkan waddanka u dhashay luqadda u dhashayna iyo kuwa sida fiican u bartayna dee waa ku khasban yihiin inay ku hadlaan oo waa luqadda caadiga lagu wada hadlo. midda aan rabo inaan baraarujiyo waxay tahay erayadan aynu qaadanayno ama casharkan aynu qaadanayno inta badan geschriebene Sprache uma baahnid ama luqadda la qoro inta badan looma isticmaalo, laakiin luqadda lagu hadlo ayay markasta soo gelayaan. dadkaan luqadda aqoonin dhibaatada haysata waxay tahay mararka qaar waxay isku dayeen inay turjumaan oo markii qof wax u turjumayaan oo kale inay qofku wax khalad u turjumaan sababtoo erayadan macno u yaqaana, laakiin markan la hadlayo waxa laga hadlayo xogaa way ka duwan tahay wixii lagu bartay. oo markii A1 A2 nicht A1 aber A2 B1 B2 meelahaas markii la marayo casharadan yani erayadan kor inoo ka muuqda sida den, ja, schon, vielleicht, halt waa la bartaa, laakiin macna loo bartaa markaas. marka ay macno la'aanta yihiin ab C1 ayaad ku baranaysaa, wixii ka soo hooseeya dee way adag tahay inaad baratid. qofkiina macnihii unbuu raacaya. qofka hadda vielleicht yaqaana dee vielleicht unbuu raacaya macnaheedii. markastoo qofka uu kelmadan adeegsado macnihii uu yaqiinay buu la aadayaa. den markastoo adeegsado macnihii uu yaqiinay buu la aadayaa, laakiin marar badan aysan macnaba samaynaynin ayay kugu imanaysaa. waana wax iska caadi ah luqadda Jarmalka in ereyo fara badan oo aan jumlooyinka qaar macno samaynaynin kugu yimaadaan. waa wax ay kala gaar tahay luqadaha kale marka u fiirsatid oo English oo kale, Soomaaliga oo kale, xataa Carabiga waxaan dhihi karnaa kuma jiraan ereyo caynkaas. ma sahlana marka qof kasta inuu fahmo, laakiin waxaan isku dayey maadaama ay nolosheeni qayb ka noqdeen erayadan, dadkan ay xoogaa ku dhiban yihiin, inaan ugu yaraan dhowr cashar ka sameeyo oo bidhaamiyo fahamka meesha ku jira. marka insha allahu caawa cashar baan ka samaynaynaa ilaa 3-4 dambena wax laga yaabaa video inaan ka samayno si aan u fahmno. erayadan way badan yihiin, waa dhowr boqol oo erey. waxay u kala baxaan marka hore wax la yidhaahdo Aptonix particle iyo modal particle iyo wax la yidhaahdo Fox particle. caawa waxaan ka hadlayno keliya waa Aptonix particle qayb ka mid ah. marka insha allahu casharka ayaan sharaxayaa, la socdo. qofkii aan fahmin ama fahamku ku adkaado fadlan haddii fahamkaaga uusan gaarsiisnayn ama ay kugu adkaato ama aad si kale adigu u baratay, macnaheedu maaha inaan anigu ku leeyahay sidaas looma isticmaalo ama sidaas way ku khaldan tahay. laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa waxaan hadda ka hadlayo inaan erayadan macno loo isticmaalin. meeshaan hadda ka hadlayo ama jimlooyinka hadda ka hadlayo wax macno ah looma isticmaalo. erayadaas macno ma sameeyaan. taa macnaheedu maaha erayadaas inaysan macno lahayn. macno way leeyihiin markii hadda la joogo den oo kale, markii conjunction la joogo macnay leedahay. vielleicht oo kale macnay leedahay, schon macnay leedahay, ja macnay leedahay, halt macnay leedahay. laakiin hadda meeshaan ka hadlayna erayadaas wax macno ma sameynayaan. jimlada un bay soo gelayaan, waxaana inta badan loo isticmaalaa luqadda lagu wada hadlo ee luqadda la qoro looma isticmaalo. okay, jimlada ugu horeysa, was ist denn los mit dir? waxaan rajaynayaa inay tahay believist satse oo qof walba ugu yaraan uu maqlay mar ama uu isticmaalay. was ist denn los mit dir? maxaa kaa khaldan? taa macnaheedu maaha maxaa marka kaa khaldan, nein, macnaheedu waxa weeyaan maxaa kaa khaldan, maxaa kaasi adiga weliba maxaa kaa khaldan ayaa inta badan laga wadaa. was ist denn los mit dir? maxaa kaa khaldan?
okay then markaynu joognay conjunctionka macno gaar ayay inoo sameynaysay oo maxaa yeelay sababtoo ah waxyaabahaas inuu isticmaalin laakiin hadda macno la'aan bay noqotay wax macnaa uma isticmaalin soo ma jeedaan okay jimlada labaad du kannst ja nachkommen ich gehe schon voraus aniga waan baxayaa iga daba imow waan baxayaa iga daba imow okay yaa macnihii inoo samayn jirtay markaynu caadi ahaan u turjumno laakiin hadda jimlada tan macno ma samaynayso sidoo kale shon wax macnay hadda samaynayso ma laha keliya waxay ina tusinaysaa oo ay jimlada tan ina tusinaysaa qofkan inuu ku leeyahay waan baxayaa anigu haddaan dhaqaaqaya iga daba imow hadalka un bay adkaynaysaa haddaan ku dhaho du kannst nachkommen ich gehe voraus ja ich gehe voraus du kommst nach was ist das das ist bisschen nicht beliebig waxaa la rabaa hadalka inuu beliebig hadal nool inaan ku hadashid oo yacni qofkii si adag ula hadasho oo kale du kannst ja nachkommen ich gehe schon voraus innaga luqadeena caadi ahaan marka qofku uu rabo hadalka inuu adkeeyo ama qofku markuu wuxuu la yaabo loo sheego ama wax khaldan loo sheego ama wax uu reaction uu samaynayo waxaynu bedelaa tonka codka ayaynu bedelaa oo qofku wuu qaylinayaa mar wuu qoslayaa mar waxyaaba yacni reactionkaynu samaynayno ayaynu ku muujinaa sida aynu u dareemayno hadalka qofkan ina leeyahay laakiin luqadda jarmalka nine sidaas ma aha qofku reaction kuguma tusayo iyo ton kuguma tusayo ee wuxuu kugu tusayaa kelmadahan ayuu isticmaalayaa si uu kuu tuso inuu kula yaaban yahay inuu hadalka kugu adkaynayo inuu aggressivenimo kula hadlayo inuu si degan kula hadlayo kelmadahan ayaad ku garanaysaa waxaa laga yaabaa inaad meherad fariisatid labada qof oo dhinacaaga fadhiya ay si adag u wada hadlayaan laakiin haddana haddaadan luqadda aad u fahmaynin aadan adigu ogeyn aad u malaynaysid laba qof caadi isaga sheekaysanaya nayn hadalladay isticmaalayaan nin ayay qofkan ku muujinaya waxa uu diidan yahay qofka kale ugu muujinaya hadalla marka dabcan xoogaa way adag tahay in aad loo sii sharaxi karo ama si aad looma sharaxi karo sababtoo ah waxa kala fog fahamka ereyadan iyo luqadan ayaa aad u kala fog ma garanayo sabab intaa ka badan aan kusii sharaxo laakiin waa ereyadan haddii aad maqashid gesprochen Sprache hadday kugu yimaadaan geschrieben Sprache hadday kugu yimaadaan ama luqadda qoran macno ayay samaynayaan laakiin jimlooyinka sidaas ama haddaad qof kugu yiraahdo ama kugu yimaadaan inta badan waa inaad la socotaa reaction inuu qofkan u isticmaalayo laakiin aysan ahayn wax la yiraahdo macno aysan samaynayn inaadan macno u raadinin turjumaadooda jimlada saddexaad der ist vielleicht verrückt aber er ist nicht blöd ja der ist vielleicht verrückt aber er ist nicht blöd maxaa laga wadaa hadda waxaan u malaynayaa wuu waalan yahay laakiin doqon ma aha sidaas miya maya waxaan u malaynayaa waa waalan yahay laakiin maya saas lagama wado waxaan u malaynayaa maaha waa waalan yahay laakiin doqon ma aha waa waalan yahay qofkan waaba la xukumayba der ist vielleicht verrückt aber nicht blöd ja nicht blöd aber verrückt waa waalan yahay laakiin doqon ma aha waxa uu sameynaya doqoniino kama aha laakiin qofkan wuu waalan yahay dabcan kelmad fiican ma aha ama jimlo fiican oo qofku inuu isticmaalkeeda badsado ama isticmaalaba ay tahay ma aha laakiin waxaan rabaa kelmaddan un fil aakhir macnaheeda inoo turjumo saasaan jimlada u sameeyey laakiin jimlo qurux badan maaha dadka inaad kelmad khaldan ku tiraahdid wax wanaagsan maaha qofka muslimka mar walba hadalkiisu waa inuu hadal wanaagsan yahay macquula qowlun macruufun khayru min sadaqatin yatbacuha adaa hadalka wanaagsan waa ka khayr badan yahay sadaqada xataa haddaad xanaaqsan tahay dirba mar walba inaad qof hadal wanaagsan noqoto oo si degan dadka ula hadla aydan kelmaddan ama jimlada tani ma aha jimlo qurux badan laakiin xarafkan ama ereygan un baa rabin inaan turjumo yani filaakhtu un baa rabin inaan jimlo marka wuxuu ku leeyahay wuu waalan yahay laakiin doqon ma aha doqonina waxaan uma geynaysa waa qof waalan saasuu ka wadaa filaakhti marka iyadana jimlada tan wax macna inoo maysan samayn keliya waxaynu tusay qofkan inuu ku adkaysanayo qofkan inuusan doqon ahayn laakiin uu waalan yahay hadduu dhihi lahaa der ist verrückt aber nicht blöd waxay noqon lahayd hadal aan aad u adadkayn waa waalan yahay doqonna maaha saas iska noqon lahayd laakiin markuu yidhaahdo der ist vielleicht verrückt aber nicht blöd macnaheedu waxa weeyaan wuu waalan yahay laakiin doqon ma aha qof huba qofkan inuu wax ka khaldan yihiin maskax ahaan laakiin uusan doqonina waxaan u geynin okay jimlada kale daran lässt sich halt nichts mehr ändern daran lässt sich halt nichts mehr ändern waxba lagama bedeli karo taas waxba lagama bedeli karo
arrin baa dhacday waxbaa si u dhacay waxba lagama bedeli karo okay ereygan u socono marka meeyey ereygan u socono waa halti macno ayay samaysaa mararka qaar luqadda jarmalka ah laakiin hadda wax macnaa ma samaynayso halti macnaheedu waxa weeye ebenso fertig ich kann man nicht anderes machen ja kann nie anderes machen so bleibt einfach marka iyadana macnahaas ayaa loo isticmaalaa waxaa jirta marar ay ereyadana double noqdaan ama laba isu raacaan oo laga yaabo laba erey oo abtonix particle inay israacaan sida aber auch doch ruhig eben schon okay laba ayay hadda isu raaceen tusaale ahaan ruf doch ruhig mal bei mir an ruf doch ruhig bei mir ruf doch ruhig mal bei mir an maxaa laga wadaa mar si degan ii soo wac saas miyaa laga wadaa maya saas lagama wado waxa laga wadaa isoo wac laakiin waa isoo wac lebendig ah isoo wac arrin baan ku hayaa isoo wac lebendig hadda arrin baan ku hayaa halka kuma qorna laakiin macnihii qofkan wuxuu qofkan u dirayaa u sheegayaa adigu isoo wac fertig laakiin macnuhu maaha in ruuhig lagu turjumo hadda wax degan maal lagu turjumo mar dookh lagu turjumo yacni ereyadan hadda macno ma samaynayaan sababtuna waxa weeyaan qofkan jimladan wuxuu adeegsaday keliya inuu qofkan tusiyo inuu wicitaan ka sugayo hadalka unbuu leebindi ka dhigayaa ruf dookh ruhig mal bei mir an fertig jimladeenna kusii xigta das hättest du aber auch nicht sagen sollen das hättest du aber auch nicht sagen sollen taas ma ahayn inaad tiraahdid maxaad u dhahday taas qof baa qof wax yiri ama shay ama waxbuu yiri ama waxbaa das hättest du aber auch nicht sagen sollen taas ma ahayn laakiin inaad tiraahdid maxaan marka u soconaa auch iyo nicht oo jimladan iyagana inoo ku jira auch iyo aba oo iyana jimlada inoo ku jira macno ma samaynaya aba iyo auch macno ma samayn macnuhu maaha laakiin taas ma ahayn sidoo kale inaad tirahdid nein taas ma ahayn inaad tirahdid fertig das hättest du aber auch nicht sagen sollen taas inaad tirahdid maahayn okay aba iyo auch wax macnaa jimladatin ma samaynayaan keliya waxayna tusinayaan inaysan qofkan inuusan ku faraxsan inuu aad uga xun yahay inaad waxaa sheegtay hadduu laakiin caadi iska dhihi lahaa das hättest du nicht sagen sollen hadalkii wuxuu noqonayaa hadal iska caadi ah wuxuu ugu yiri ama waxaad u arkaysaa qofkii inuu kugu yiri ma ahayn inaad sheegtid taa macnaheedu qofku kama xanaaqin laakiin ereyadan aba iyo awq waxayna tusinayaan qofkan inuu dhibsaday ama ka xanaaqay inaad waxaa sheegtay macnaha waxaad rabtaa u isticmaali kartaa maaha jimladan oo keliya laakiin hadda waxaan uun jimladan uga dhisay inaan labadan erey sharaxo yacni inaan xoogaa sharaxaada fududeeyo laakiin meesha rabtaa u adeegsan kartaa haddaa rabta xoran kartaa das hättest du aber auch nicht tun sollen taas ma ahayn inaad samaysid taas ma ahayn inaad sheegtid taas ma ahayn inaad yani macnahaasaa rabtaa u dhigi kartaa okay ist eben schon nicht schlau ja ist eben schon nicht schlau qof caqli badan ma aha qof caqli badan ma aha ma caqli badna hadduu caqli badan yahay waxaas ma sameeyo schlau waxa la qofka caqliga badan fariidka ma caqli badna maxaynu u soconaa marka eben iyo schon iyadana jimladatan wax macnaa ma samaynin macnuhu keliya waxa weeye eben iyo schon keliya waxayna tusayaan qofkan inuu qofkan ka xanaaqsan yahay inuu qofkan ka xanaaqsan yahay sababtoo hadduu oran lahaa ist nicht schlau macnuhu waxay noqon lahayd fariid mah laakiin hadda eben schon waxayna tusaysaa qofkan maba ahaba qof fariid qof caqli u saaxiibaba ma aha schlau waxa leeyahay qof xariif qof caqli badan marka ma aha qof caqli badan okay maanta halka ayaan casharkeena ku joojin rabnaa waxaan rajaynayaa insha allahu dhowr cashar oo kale inaan ka sameeyo waxaan isku daynaa insha allahu in aan sharaxno ereyo fara badan oo caynkaas oo kuwana dhebel isu raacan waxaa laga yaabaa 3 inay mararka qaar isu raacaan hadda caawa waxaynu qaadanay labo laakiin xitaa 3 ayaa mararka qaar isu raaci karaa nin oo 3 erey ayaa israaci kara oo midna jimlada macno u samaynaynin laakiin mar walba waxay ku tusayaan reactionka qofkan ma kula yaaban yahay ma xanaaqsan yahay sidee qofkan hadalkaaga u arkay ayaad ku fahmi kartaa adiguna aad ku gudbin kartaa mar walba insha allahu waxaan rajaynayaa
in videogu inta aynu ka dheeraado inaysan qurux badnayn maanta inta ayaynu